ساشي كلام عبد القادر سؤال أقصد عبد القادر كده ما يوفى صمد النوع يا مغنى شيلوا ما وحير كجرا عبد القادر أنا مغنى المدح وينه هذا كودينا وحرب لها إن هذا يكسرته أود هذا إسلام كان طارتان رسمي lagu sameeyo dadka furaya biyaha la xiray lugooyadana ku haya shacabka iyo dadweynaha reer beledweyne maxay u suurtagal laadahay in sharciga la horkeeno dadka biyaha xiraya hadeertaana barnaamijna oo halo ku maqleynaa caadi waa madaxweyne soo fiiri dadka muxuu ahay furaya biyaha hataa naqaanaa oo aan ognahay waxaa laydinka rabaa aniga muxuu ahay hirshabeelle qoray kuma qabsan picnicays daba socotana kuma qabsan waxaa laygu doortay oon matalaa dadka waxaana ku shaqeeya rabitaankooda taas keliya ma ahane waxyaalo ka horreeya oo ay ka mid tahay in muxuu ahay xiradii aan idinka sheekaynayo waxaa la rabaa odayaasha dhaqanka ood adigu gadaal ka taagan tihiin caawa nin haddii lasoo qabto qabiilow noqonaa nin haddii la dilo diidiisa shaksiyan anaa layga rabaa hadda qof haddii inta lasoo dilo lasoo qabto anaa layga rabaa intaa laysoo tuurana 100 jeeraan odayaashii ugaaska waxaan ku iri maamulku waa shaqeynaa dadkaana waa ku aadnaa keliya waxaan idinka rabnaa your blessing in qofkaan soo qabanno sharciga la hor keeno waa inuu qabiilku iyo dadku waa inay aqbalaan in awoodda la isticmaalo awooddu kuma timaado qasab dadka aaminsan waa la kala adkaadaa iyo dadka madaxa lagu dhuftaa iyo waxaas ma shaqeynayaan waxyaalaha aan rabo haddii ilaahay idmo shirkaas markii laisugu yimaado dadku waa inay caqdi kala qortaan dowlad sideedaba waa social contract dadku waa inay aqbalaan inay cashuur bixiyaan qofkii markaas cashuurta bixi waayo waa la soo qabanaa waa la xiraa laakiin magaaladu hadday wada diidto cashuur yaa la soo qabanaa dadku waa inay aqbalaan ninkii dembi gala in la soo qabto hadday magaaladu wada diidto yaa la soo qabanaa arrintaasu waxay salka ay ku haysaa doodii ahayd hirshabeelle iyo xawaalda muxuu ka qabaa iyo hirshabeelle iyo mataqaana waxyaalihii la sheegi jiray aniguna diyaar u mid waxayna ummadaanu raalli ka ahayn ina sameeyo wixii odayaashii dhaqanku ay diideen dhammaantood ay diideen oo ugaasku diiday aniga intee ka keena authority-ga aan dad intaan kusoo xirxira aan madaxa ku dhufanay aan ku tooganay intee ka keena maxaase danta iigu jirtaa maxay tahay anigu haddiiba dadkii oo aniga aan xukuma haddaysan rabin dadku waxaa lagu xukumaa waxay rabaan oo loo aruuriyo laga yaabaa dad inay aaminsan yihiin inay fikradaasu qaldan tahay oo leeyihiin ninkan maskiin waay meeshiyaa dhaaf laakiin waa tan aan aaminsanahay waa qof walba political philosophy uu leeyahay ma aaminsanid dadka rabitaankooda waxaan ahayn inay shaqaynayaan mudane madaxweyne xawaadla markuu isla isku sheekeynayo wuxuu isu sheegaa isku soo taagidda jeegada madaxweynenimada ee hirshabeelle inaana cid xawaadla ahayn ee isku soo taagi karin arrintaasi ma arrin dastuuri ah mase waa arrin xawaadla uu iska rumaysan yahay oo aanan meelna ku salaysnayn بسم الله الرحمن الرحيم أرنتاس هرتا شبelle waxaa lagu dhisay heshiis iyo gorgortan iyo negotiated settlement inkastoo weliba sida aad ka warqabtaan xawaale miisaankiisii uusan hirshabeelle kana qayb gelin na taageerin sida hadda ay wax yihiin inuu xawaadle oo ahay madaxweynaha ka noqdo hirshabeelle waa gentleman's agreement sida 4.5 oo gentleman's agreement u yahay asagoo aan dastuurka ku qornayn iyo u yahay
weliba documentigii lagu kala saxiixday igad horteeda aniga waan hayaa oo xawaale la siiyey oo ahay madaxweynaha laakiin dastuurkana kuma qorna shira hadda la yahay haddii la sii ahaadane wax diidaa male wax ka hor istaagaana male in qof kale inay soo istaagto wax kastaahu waxaa saldhig u ah wax kastaahu waxay ka bilowdaan sida adinka rabitaankiina aad u operationalize garaysiin qof iska jiifa oo muxuu ahay gurigiisa iska jiifa wallahi lama soo dhawaan karo hadda waxay noqonaysaa abeesadii iyo urayskii muxuu ahay is-aroos rabay noqonaysaa nin walba arooskii mataqaana oo dowraha meeshaas banaankaas talo 13 xildhibaan oo xawaali ku leeyahay muxuu ahay baarlamaanka Hirshabelle waa 13% hala muxuu ahay macna kale iyo lagu keeno oo sina la 14 14 kaas waa Soomaa 14 maxay ka goysaa marka Hirshabelle maxay ka goysaa in Hirshabelle markii teeramkaanu dhamaado baarlamaanka labaad la dhiso oo muxuu ahay qoladan ajnabiga oo maalin weyn elections iyo ka hadlayna ayaa waxa ku yiri baarlamaanku waa inuu eekaado shicib baarlamaanku waa inuu shicibku u eekaado haddii qola ay ka tahay 40% waa inay more or less ay u soo dhawaato 45 noo noqon karta 35 noo noqon karta baarlamaanka Hirshabelle uma eka shicibka Hirshabelle uma eka in loo ekaysiiyo waxay ku xiran tahay political mataqaana settlement kala dib la isugu noqdo gaar ahaan abgaali xawaale intay isarkaan umada kale tane waxay ku heshiiyeen ka gadaan meeshaasayna taala hadii halkaas ay taalo u dhaaftaan maalin walba muxuu ahay qaylo iyo anaga iskale email midina ku jireyna laakiin muxuu ahay inta hadda talada aad wax ku leedihiin inta hadda muxuu ahay grievanceskiina iyo cabashadiina loo dhiga nugul yahay inta hadda fursado ay jirto wax lagu sixi karo hadii la sixi waayo hadda waa nin walba meesha uga tagaya looga mudane madaxweyne markaan aragno tabaryarada Hirshabelle iyo meelaha iyo waxqabadka adiga laga rajeynayo oo kasta waxa ku dhacday ayna dhicin waxaan isku sheegnaa ayatullaahiga dawladda inuu yahay cali guudlaawe ee ku xigeenkaaga taas ma saxa استغفر الله horta walaalayaalow marka kaftanka laga saaro horta ummadu markay jabto oo baabado oo dhulka taalo waxa lagu gartaa cabaad iyo dad kale oo la maagmaago waxa aniga imaaraadkan waxa ku noolaa mataqaana waqti fara badan waxa jira kaftan dhahaya hadii saxaraha dabaylo ka soo kacdo oo ay magaalada marmaray saxaraha dabaylo ay qaadaan waxay dhahaana leeyahay carabta wallahi bila Israa'iila mataqaana waxa Israa'iila dabada uga jirto calaamadaha oo mataqaana dhulka in la yaalo waxa kamid ah intaan tabarteeni iyo xooggeeni isla heli weynay ayaa waxay dantu nagu kaliftay inaan mataqaana meel kale la aado horta dad anaga oo ahay muslim oo sunni aan nahay ayatullah horta shiicadan ka maqli jirnay horta shiica ma niid ninkaas odaga haddaan specifically inkastoo qof naga maqan inaan wax ka sheego laga fiican yahay ninkaas Hirshabelle waxa saldhig u ah abgaal iyo xawaadle markii la dhisay al guudlaawe khayr Allah siiyo waa hogaamiyaha aan muran ka taagnayn oo laga daba hadal oo blogga abgaal wuxuu ka yiraahaa socda wuxuu yiraahaa dhaqaaqa dadka kale tane markay cid raacayaan dadka isku tubaridanay raacaan ma dadka ay kala daadsan ma raacaan waa ku wuxuu ahaa gudoomiyihii Shabeellada Dhexe oo Hirshabelle lagu dul dhisay
waa soo gudoomiyaha gobolka riski qaatay oo ka tanaasulay oo muxuu ahay saas Hirshabeelle ku dhisanto aniga markaan muxuu ahay tii hore oo cali cusublee iyo markii aniga markaan imid qof walba strategy uu leeyahay qof walba muxuu ahay vision uu leeyahay qof kasta wuxuu leeyahay game plan aniga waxa ii soo baxday xaaladda muxuu Hirshabeelle markay saan tahay markaasna culays farabadan oo dawladda xaggeeda uu jiray sida kaliya oo Hirshabeelle ay survival ku sameyn kartaa waxa waaye aniga iyo madaxweyne ku-xigeenku aan wuxuu dhiibo oo aan empower gareeyo oo ay shaqeeyaan dadkii oo waagii oo aan hay'adaha u shaqeyn jiray yaqiin waa og yihiin dadkii muxuu ahay ka dambeeyay waa og yihiin dadkii ila shaqeyn jiray oo hay'adaha igala shaqeyn jiray dadka Soomaaliya hadda ugu lacagta badan ama ugu awood badan ay ku jiraan waxaan aaminsanahay qofka ila shaqeeya ila empower gareeyo ninka shakhsiyadiisa waa nin fiican waa nin wanaagsan waa nin nabadoona waa nin dad jecel yihiin nin xawaalo necab maaha niman yahow meeshaas idinka kama jirtee intaad shaydaanka iska naartaan muxuu ahay lugaha isku duuda midda kale Hirshabeelle hadday muxuu ahay sida maamulada qaarkood ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay iska qabsadeen oo iska xagteen ma ila tahay maanta meeshii joogtay inay soo gaari lahayd marka ninkaas odoga dibiyowna idinka raacin waxa meeshaan idinka maqan idinka maqan yihiin asiga uguma maqno waxa meeshaan idinka maqan inta isku lagu duwataan ka soo doonta maasha Allah mudane madaxweyne waxaad u soo qabatay gobolka ayaa lagugu doortay mise waxaad aaminsan tahay in lacagtaada isku soo saartay sida ayaamaha siyaasiyiinta xawaale u soo banbaxaan ما شاء الله هرتا الحمد لله بالعالمين aniga labadan gobol iyo shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaan ka shaqeynayaa 30 sano magaalada beledweyne aniga waxaan imid bishii May 1991 ayadoo magaalada boqolkiiba 60 ay guban tahay inta hadda lagu daray iska dhaaf intii magaaladii hore ama galay ilaa iyo muxuu ahay irid aamin weliba waxa la jeedo dhan ay carradu ay madowdahay gubatay magaaladu aysan muxuu ahay aysan jirin barnaamijkii aan ka bilownay beledweyne waxay ahayd adduunka dhan waa research gareyn kartiin meeshii ugu horreysay oo ICRC ay raashin diyaarad ku geyso ayay ahayd magaaladan 92 iyo 93 hay'adda ICRC oo aniga markaas aan mas'uul ka ahaa $5 milyan ay bishii beledweyne ku qarash gareyn jirtay oo saasi iyo garowe beledweyne dollarka loo soo doolan jiray oo ka raqiisanaa wadanka intiisa kale muxuu ahay matooradii beledweyne waagaas aan saarnay waa matoorada dadku ay barteen oo kuwa kale ku dareen oo khudaarta iyo laga dhoofiyo boosaasi lagu geeyo aniga aqoonta aan u leeyahay labadan gobol iyo xiriirka aan ku lahay iyo dadku sidii arkayna leeyahay doortay wali waxaan idin sheegaa dadka yimid muxuu ahay ninka ugu lacag yar aniga oo lacag ugu yar bixiya aniga oo ahay waa weydii kartii aniga mandate kan la ii dhiibay dadka ii dhiibay gaar ahaan dadka aan anigu ka dhashay oo adigu ka mid tihiin aniga ii dhiibay oo magacoodaan meesha ku tagay